metro ee ka soo baxa magaalada London ayaa maanta ka warramay dacwad ka socota magaalada London maxkamadda loo yaqaan Old Bailey oo ku saabsan nin Soomaali oo magaciisa lagu sheegay Aweys Shiikhay. ninkan ayaa waxa la sheegay in loo haysto dambiye la xidhiidha xagga argagixisada isagoo la sheegay inuu damacsanaa inuu weerar ku qaado ulaayo boqorada wadankan Britain Queen Elizabeth iyo ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Britain David Cameron. waxa kaloo la sheegay ninkaasi Mr Shiikhay waa sida wargeysku uu qoray inuu damacsanaa inuu weerar ku qaado dadka ciyaaraha xiiseeya ee ka soo dareeraya garoonka Tottenham amaba White Hart Lane ee ku yaala waqooyiga magaalada London. wargeysku waxa uu si aad uga warramay dacwadaha loo haysto ninkan Aweys Shiikhay waxaana uu sheegay in dacwadahaasi ay ka soo bilaabmeen xidhiidh la sheegay inuu la lahaa nin kale oo Soomaaliya oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Idris Xasan oo 2016 la sheegay in ay xidhiidh xooga lahaayeen. ninkaasi oo la sheegay in isaga loo qabtay dacwado la xidhiidha xagga argagixisada dabadeedna kombiyuutarkiisa gacanta lagu qaatay laptopka laga helay baa la yidhi xidhiidhkii labadaasi nin ay lahaayeen iyo xogtii ay isweydaarsanayeen. ninkaasi magaciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Idris Xasan ayaa Aweys Shiikhay waxa uu ku baraarujiyay in uu tago wadanka Suuriya oo uu ku biiro kooxda ISIS amaba Daesh dabadeedna waa sida hadalka loo dhigay uu ku soo noqdo dalka Britain oo weeraro xoog leh uu ka geysto. wargeysku waxa uu qoray in labada nin xogtaasi ay isweydaarsadeen ay ku saabsanayd sidii Aweys Shiikhay oo isaga lagu tilmaamay inuu yahay nin haysta dhalashada wadanka Holland laba xaas iyo caruurna ay u joogaan wadamada Kenya iyo Holland oo isagu ku shaqaysan jiray baa la yidhi gawaadhida alaabada lagu qaaday faaniska loo yaqaano in markaasi weeraradaasi baanu geysto. ninkan Aweys Shiikhay ayaa wargeyska Metro waxa uu maanta uu sheegay in la qabtay bishii May 23 sanadkii hore ee 2017 markaas oo laga qabtay gegida diyaaradaha Stansted Airport ee ku taalla magaalada London duleedkeeda. waxa la sheegay ninkaasi inuu baanka weydiistay lacag maaha oo dhamay 10,000 oo gini lacagtaasi oo uu sheegay amaba baanka uu kaga qaatay inuu ku kharash gareynaya xagga arooska amaba hawlo la xidhiidha aroos. laakiin waxa la sheegay in ninkaasi uu damacsanaa in uu tago wadanka Suuriya oo markaa la qabtayna uu sitay tigidh aan soo noqosho lahayn oo uu ku tagayo wadanka Suuriya waxaana la sheegay inuu sitay oo kale lacag $700 iyo €400 waqtigaasi la qabtay. dacwadda Aweys Shiikhay waxa wali ay ka socotaa maxkamadda Old Bailey ee ku taalla bartamaha magaalada London. haddii aan la yiraahdo waxyaabaha ka soo kordha iyo go'aanka ay maxkamaddu ku ridana waxaanu idinku soo gudbin doonaa wararkayaga dambe.